قدومي كتجين xildhibaanada golaha shacabka howlwadeennada golaha shacabka madaxda wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha bahda saxaafadda iyo marti sharafta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii waxaa farxad weyn inoo ah iyo sharaf in golaha shacabka uu soo gabagabeeyey u guurgelidda heshiiska damaanadda maalgashiga darafyada badan multilateral investment guarantee agency MIGA kaasoo runtii hay-addaasoo ka mid ah hay-adaha World Bank Group la isku yaqaano ama bangiga adduunka hay-adaha ka midka ah oo caalamiga ah oo la aasaasay hindisaheedana la lahaa 1985 lana aasaasay 1988 runtii waxaan heshiiskaani waa heshiis aan la gelayno hay-adda la yidhaahdo MIGA dowladda Soomaaliyeed ay la gashay wasaaradda arrimaha dibadda ay u saxiixday bishii February 13 2018 waa heshiis caalami ah waa hay-ad la yaqaan oo ka mid ah hay-adaha adduunka oo kuwa lacagaha ka mid ah waxaana golaha wasiiradu heshiiskaas uu horay u ansixiyey bishii Abriil 4 2019 kadibna golaha shacabka ayaa loo soo gudbiyey heshiiskaani runtii waxaa loogu talagalay in wadamada soo koraya ama kuwa ay ka jiraan dhibaatooyinka keenaya maalgashayaasha inay hantidooda ku aaminaan dhibaatooyin jira awgood u sameynaya caymis ama waxa la yidhaahdo political risk assurance waxyaabaha la cayminayo waxaa weeye waxaa lagu soo koobay 4 qodob waxaana ugu weyn marka la geliyo ciriiri sarifka lacagaha ama isku beddelka lacagaha ama diritaanka isu gudbitaanka lacagaha taasoo runtii ay ka dhalan karto ay ku timaado si ficil ah ama si ficil la'aan waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha la cayminayo runtii khasaaraha ama dhaawaca dhaqaale ama burburka ka dhasha dagaalada iyo kacdoonnada banaanbaxyada iyo kuwaasoo saamaxayn ganacsigii la maalgeliyey inuu u socdo sidii loogu talagalay waxaa kaloo ka mid ah jebiyo heshiiskii la wada galay taasoo ay ka dhalan karto dhaqaale ganacsi runtii waxaa ka mid ah in lacagihii loogu talagalay ama lacagihii maaliyadeed loogu talagalay runtii ama waajibaadkii dhaqaale ee dowladaha ama hay-adaha dowladdu ay kantaroosho ay la galeen ganacsiga adduunka in sidii loogu talagalay lacagihii waqtigii loogu talagalay ama maaliyaddii ay ku imaan weyso taasna waa ka mid noqon kartaa waxyaabaha la cayminayo waxaa runtii ka mid ah waxa la yidhaahdo in la qarameeyo heshiiskaani ugu dambayn wuxuu albaabada u furayaa fursadaha maalgelinta kaabayaasha dhaqaalaha dalkeenna sida waddooyinka dekedaha garoomada dayuuradaha biyogelinta iyo korontogelinta iyo wixii la midka ugu dambayn waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa guddoonka guddigii nagala shaqeeyey heshiiskan guddiga u qaabilsan baarlamaanka ama golaha shacabka ganacsiga iyo dhaqaalaha iyo maalgashiga iyo warshadaha oo runtii aad isugu dabariday mas-uuliyad weyna iska saaray mahad ballaaran u celinayaa waxaan kaloo mahad ballaaran u celinayaa xildhibaanada baarlamaanka oo si aqlabiyad leh heshiiskan u ansixiyey heshiiskaani runtii mid mugdi ku jiray ma aha waa hay-ad waxaan xildhibaanada uu shaki uga jiro waxa heshiiska lala gelaayo buugga sababta loo keenay waxaa weeye buug wuxuu ka hadlaa World Bank Group hay-addan sidii loo aasaasidda hay-adda MIGA ku qada أنا لو سويت ترجمة لي سيدا سافوق لو سويت ترجمة، هو تينا سيدا حجبان لو قادان، أيام منا.